أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم maanta taariikhdu waxa weeyaan waa 27 bishii saddexaad sanadii 2023 waxaanu ku jiraa bilowgii bishii Ramadaan ee barakeysneed Allahan weyna waxa inooga baryayaa inuu ina siiyo barakada bisha Ramadaan inta kadib codkani wuxuu ka mid yahay maxaad ka taqaanaa gumaysiga madowga Itoobiya ee taxanaheena inoo soo socday gumaysiga madowga Itoobiya maxaad ka taqaanaa su'aasha markii la waa su'aal aad u mug weyn balse waxaan ku soo ururinaynaa bal waxaad dhageysataan haljamaa nafti hore Dr. Maxamed Ismaaciil iyo mowqifka uu ka qaba halganka xilli uu dhex maray waraysi taasoo leeyahay halganka jabhadda wadaniga xoreynta ogaaday ama tusaale ahaan ummad hadday xoroobayso ma jirto jaamacad gaar ah oo ummadaas intii beesha caalamka u samayso ya lagu barto ummadaas waxay ku xoroobayso laakiin ummad walba waxay ku xoroobayso iyada u taallaa sida awgeed codkan oo ka mid ah aragtida uu halgamaagaasi qabo oo ka midaysanahay fikirka xilli la dhex maray waraysi codkiisa mid ka mid ah weeye sida awgeed waxaan dhihi karaa marka ummad waliba iyada u taallaa siday ku xoroobi lahayd gumaysiga madowga Itoobiya wuxuu haystaa laba shay aqoonsi caalaminnimo iyo taageero caalaminnimo sida awgeed waxaa lagama maarmaan ah in halganka jabhadda wadaniga xoreynta ogaaday inuu soo horiyo guulahaas oo kale sida awgeed balaan markii hore kusoo dhawaano halgamaaga nafti huraha codkiisa si fiican u dhageysta waxyaabo badan jaahilka ama cilmi adduun ha noqdo ama tii diineed ha noqde qofku markuu hoose inkastoo qof 23 jira ay wax badan uu noloshiisii garanayo ha rabaa mas'alo gumaysiga madowga Itoobiya oo ogaadeen qabsaday reermudugna ugu hiiliyeen ilaa ay eegana صدرتي سنابة حوام هالجنتو بالله كلا جو أحيا جويسياس وأقوم بحقوله سيابه وكلا ترنا صدرتي سنابة وحي كلا جو أحيا بين هذا كم وجود بيس كم معي سيدا أول مسألة النوع عاسه وحروبها أنت هاي إلا لي ما تعقل السرع وتطلع أنتي صبرا كي عبيا tusaalaha aan u soo qaatay waxa weeyaan ninka diyaaradda sameeyey markuu diyaaradda curiyey diyaaradda uleysaan samaynaya waa lala yaabay in lala yaabanaa baan u malaynayaa marka Soomaalidu waxay leeyihiin waa xoreynayaa oo ka bakoofiitu ay dhammaynaysa waxan iyo dadada lehe waa xoreynayaa عقلياس waxaa lagama maarmaana in la celceliyo fikirka noocaas aan waxaan qabaa inta badan waxba ay muuqda adeer aniga wixii ii muuqday waa waxaan rabaa markii 20 sano ugu dambeysay dadkii aan isgaarnay way qaadan waayeen wixii aragtidii way qaadan waayeen fikradii way ku adkaatay fikradaasina waa caqiido waa formula waxaan anu aaminsanahay laba shay weeye labada sida aanu qabo laba shay baa wuxuu yahay gumaysigu wuxuu ugu haystaa waa taageero caalaminnimo iyo aqoonsi caalaminnimo uu lagu gumaysanaya innakuna taageero caalaminnimo iyo aqoonsi caalaminnimona ma haysano taa marka sidii lagu gaari lahaa 28 sano u dambeysay ciidanka wadaniga xoreynta ogaaday iyo halgankan marihii uu dhalay yaa aniga si fiican igu muuqday ma garatay marihii sidaa ahaa marka ma hela cid inala jara misaweyne haddaan weyne anu waxaan qabaa fikirka ay Soomaalidu ogaadeen ama xubnaha jabhad iyo qabaan baa waxay tahay halgankani inuu kala go'ay lana soo noolayn jiro يا adiga anigu waxaan qabnaa marihii dhashay inay meeshii dalay dhaqaajiyo
sida awgeed waqti intee la-eg bay nagu qaadanaysaa wey horta waxa weeye kaaga baxay adeer ma garata horta waxa weeyaan adduunkanu ilaahay baa abuuray ilaahigii abuuray oo dadka iyo geedaha iyo buuraha iyo wax oo dhan abuuray wax kasta uu qorshaysan yahay wuu qadaray intuu jirayo waxa jiraya si uu jirayo wixii baaba'aya sababtuu baaba'aya wixii baabi'inayay geed iyo dhul iyo ciid iyo dad iyo wax oo dhan qaramo qowmada qowm dhan uu burburaya waxaasoo dhan way iska jiraan waxaa jira sidaa daraaddeed wax aynu boqolkiiba boqol aynu dhihi karayno saasay noqonaysaa ma ay jirto keliya waxa weeyaan waxaan ogsoonnahay oo dee iska experience lagu soo qaatay iyo waayo arag iyo caqliba dadaalkaagu intuu noqdo unbuu degdegaaguna noqonaya haddii aad dadaal badan lala yimaado iyo effort badanna waxaagii 20 sannadood iyo 100 sano kugu qaadan lahaa laga yaabaa inuu 5 sano 10 sano it depends proportional wuxuu leeyahay wuxuu intuu kugu qaadanayso inta aad adigu gelisay waxaa kaloo jira wax kasta oo aynu qabanayno waxa weeyaan meel isolated kama qabanayno waxaynu ka qabanaynaa waxaan ku jirnaa bilow aadmiyaynu ku dhex jirnaa regional international all this way ku saamaynayaan oo iyagu gudhoodu qayb bay ka qaadanayaan inuu waxa uu degdeg u kaco iyo inuu waxa uu degdeg u kali waayo sida ay ku taageeraan jawigu siduu noqdo yani all waxaasoo dhan ka jawaabta laga jawaabayo ugbaa imanaya laakiin waxa weeyaan midda ugu muhiimsan baa waxay tahay laba arrimood mid waa mide adiga ma lagu gumaystaa haddii ma lagu gumaysto waajibka koowaad ee ku saaran waxa weeyaan reaction waa inaad reaction resistance samee taasoo horta marka ugu horeeya regardless in lagu taageero inaan lagu taray waa inaad reject garayso oo diido muxuu ahaa gumaystiga gumaystiga adigutii marka ugu horeeya taas waa mid oo waxa weeyaan adiga yani option doorasho kale ma lihi mar haddii lagu gumaysto gumaysiga diid marnaba ha iska ogolaane oo haddaan dhimani dareerka iska dib macnadii kolley waa dhimanaya adigoo maaragtay diidahaya gumaysiga markaasaynu weliba muslim baan nahayo maxaan ka helaynaa diidadaas ajri baan ka helaynaa oo waxa weeyaan haddii aan xagga nuul ka waayay waxaa dembi kuugu imanaya inaad gumaysigii iska ogolaato oo aad kolka sidii gumaysigu rabay u dhimato intaad u dhiman lahayd sidii ilaahay rabay laanna markaad xaqdarrada diido gaalada xataa maad aragtay lagu taageera xaqdarrada ay diidayeen ajri aakhirada heli mayla socotaa ugaas aad baan kula socda aad waxa weeyaan taas waa midda labaadna waxa weeyaan oo iyadana markaa meesha ku jira waxa weeye marka aan wax walba waxaa ugu adag bilowga markaad wax bilaabayso kow marka ugu horeeya waad yar tahay waad tabar yar tahay dadkaaguna kuma fahmayo oo wuxuu leeyahay ma adigan sidanaba waxaa sidaa u weyn wax ka qaadi karaya iyuu oranaya ogtahay marka logic ahaan marka ugu horeeya taageero badanna helisada waa lagula yaada waxaa lu leeyahay 2 qof baaba tihiin 4 baaba tihiin adigoo sidan oo dhaxla haysano miskiinkaaga miyaa ameerika isku taagi karaya ilan ameerika adoo isku taagin bay ka dhigan tahay adigoo markaad bilaabayso adoo etoobiya isku taagi kaana ameerikii reer galbeedkiina walba taagin marka waa lagula yaabaya waa bilowga hore yani waxaa jira wax la yidhaahdo physics-ka soomaalida dhiga waad dhigatay soomaa waxaa jira laba energy baa jira energy-ga la yidhaahdo kinetic iyo midka la yidhaahdo inertiaha marka mid walba maad aragtay noocu leeyahay kinetic-gu waxaa la yidhaahdaa markuu baabuurku taagan yahay
abuurku markuu taagan yahay haddaad inaad riixda doonto inaad marka hore gilgisho mooyaane markuna ma riixmi karo ma garatay laakiin mar hadduu dhaqaaqo oo shaad matoorka maaha markuu dhaqaaqayo kinetic energy baa haya markuu taagan yahay saad u riixda way adag tahay laakiin mar haddaan fujiso maad aragtay uu dhaqaaqo wuu ku soconayaa oo marka hore dhaqaajinayso kineticaasaa ku haysanaya marka bilowga aad bilaabaysa ee noociisa ah ma aad garan karayso qadibka ilaahay baa og ma haddaad sii saadaaliso oo tidhaahdo waxaan ku samaynayaa 2 bilood ama aad tidhaahdo 2 sano waa mistake weyn weye because haddaad 2 bilood aad goosato ood soo dhoweysatana markay 2 bilood dhaafto dee moraajan baa kugu dhacaya wuxuu sii socdaa muxuu yahay baad odhanaysaa maogtahay haddii aad meel fog sii qabsatana waxa weeyaan waxaaba waad isdhiganaysaa oo waxaad dhihi 5 sannadood waa waqti baaban haysanaba marka weligeedii aad leehayd adigu waxa weeyaan wax alla wixii aad qaban karayso ee waajib kugu ah waxna ha hagranin ya waxna yani inaadan waxba hagranin baa lagaa rabaa marka hadday ilaahay kuu soo dedejiyana oo gargaar meelo kale ilaahay kaa siiyana alxamdulilah haddii kuu soo gelina kolleygii waajiba inuu wadaday miyaad qorumaynaysaa haddaad adigu hadda sidaad u waday aad ku dhib ya waay adeer waan ku fahmay horta waqti dheer waan wada hadlaynay waxaa fiican fursadaha inaynu kala faa'iidaysano waxaan rabaa inaan kusoo dhawaano bal anigu waxaan qabaa aragtida bini-aadanka ku jirta horey baan u idhi banaanka haddii la keeni karo aayad la akrinayo dhibba ma jireen ee aragtidii qofkii ku jirtay wuu luuqadii kusoo gudbinaya iyadoo cod ah sida awgeed haddaan tusaale usoo qaadano hadda adduunyadan 4 xoog baa jirtaa laynagu yidhi moogtahay si scientific ahaan qola hadda waxay la yimaadeen baa laleeyahay xoog shanaad xoogagii hore way lacag bateen baa le waa tan waa xoog electriga iyo nuclearka iyo waxan xoogagaas 4 ahaa xoog wax lagaga maarmo oon kharash lahayn baan soo saaraynaa bay dhaheen saynistiyaal waxaan ka hadlayaa marka doodeenu waxay maraysaa marka mas'alada soomaalida ogaadaya inay xorowda ayaa anigu waxaan qabaaba inay nidaam noocaas oo scientific oo xisaabi isku bedeshayba ma garato sidan aad u hadashay waan ku yeelay laakiin waxaan anigu aaminsanahay xilligaan kala maqnayn 20 sano in anu nairobi ku jiro waxa aan tusaalaha usoo qaatay in ummadda soomaalida ogaadaya ay u baahan tahay in la qaato go-aan adag taana waxaan usoo qaadanaynaa xilliyada maaragtay halgan markii lagu jiro waxaa tusaale loo soo qaataa halgamada kale ee adduunyada kale haddaan tusaale soo qaadano meelo badan way iska shabihi karaan hadda waddanka la Rwanda oo 2 qabiil isku faraxasheen huutiyiin iyo tuutsiyiin la yidhaahdo hogaamiyaha ilaahay usoo kiciyey hogaamiyahaas mar ay wareysanaysay aljazeera ayaa waxaa la yidhi go-aanka aad qaadatay ugu adkaa muxuu ahaa muxuu yidhi waxay ahayd markaan idhi go-aanka ah dhiigga ha la joojiyo oo yaan la aargoosanin mowqifkaa markaan qaato yaa ugu khadhaadheed buu yidhi maantana waxaa weeye waddankii waa wadamada africa waddanka ugu fiican buu maanta marhayaa waxaan ka wadaa marka isaga wuxuu haystay marka aqoonsi caalaminimo iyo taageero caalaminimo haystay laakiin innaka soomaalida ogaanaya si ku xoroobi lahayd waxaa la rabaa go-aamadaas khadhadhaadh oo kale intii la qaato say ku xoroobi lahayd in laga shaqeeyo ta kale waxaan dhahayaa halgankii jabadda wadaniga xoreynta ogaadanya marka lakuin wuu socdaa maantana maalin ka qiimo badan yahay ma jiro gumaysiga madooba etoobiyana wuu burburay ma soo kacahayo waxaana tusaale inoogu filan aragtidan uu korneylku la yimid ee ah kaaraamardha waa meel guushanadii ahayd waxaa isla markiiba ka hor yimid taliyayaashii faashitayaasha ahaa ee gumaysigii hore mid ka mid ahaa oo ku qoslayba aragtidaas sidaa awgeed waxaan dhihi lahaa fadhiga ha la iskaga kaco maanta etoobiya ugu liidataa
xalka waaree gumaysiga Etoobiyana ma aha wax kale waa iyada oo la mideeyo qalinkii iyo qoriga iyadoo la qaato aragti dheer marka codkeena wuxuu ka mid yahay gumaysiga Etoobiya maxaad ka taqaanaa iyo taxanaheennii hore ah gumaysiga madowga Etoobiya ha dhaco Soomaalida ogaadeen ha xorowdo isu soo noqdo wanaagsan waan wax jecel waa subxaanahu wa salaam calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh